بسم الله الرحمن الرحيم waxaa farxad weyn ii ah inaan ka soo qayb galo xiritaanka tababarkan qiimaha gaarka ah leh. So after greeting, I'm very happy to participate this momentous occasion. qorshihiisii hore ayaan wax ka bilaabay 2013. So I was among those who have planned or set up the plan of the establishing of the regional police forces. nasiib wanaag safarkaygu ugu horreeyey markaan kusoo noqday mar labaad taliyaha ciidanka booliiskana wuxuu ahaa safarkii ugu horreeyey oon ku imaado dowlad goboleedyada dalka. And this is my first trip to come to the regional states. waxaan runtii halkan ka arkayaa dadaal fara badan oo la geliyey. So sincerely speaking, I want to mention that here there is a lot of hard work and effort that has been done. dhammaan cid walba oo ka qayb qaadatay deeq-bixiyaashii iyo dowlad goboleedka iyo federaalka iyo dhammaan saraakiisha iyo macallimiintaba mar labaad mahad gaaran u celinayaa duruuftan adag oo ay tababarka ku sameeyeen. وماسنتين maanta waxaad arkaysaan calaamadda goodirka ee kuma sawiran koofiyadda madaxiina ku dhagan. So today you are seeing this sign of Somali police forces that you have in your head. waxay leedahay qiimo gaara waana institutionkii ugu horreeyey ee dalka laga sameeyey institution la midana uusan jirin cimrigiisa waana mid mideeya dhammaanteen. And this is the thing that make us a common or that we can take together.
waxaan rajaynayaa maantay inaad ugu adeegi doontaan bulshadiinna wixii aad barateen una qaban doontaan nabadaynta iyo u adeegidda bulshada. بسم الله الرحمن الرحيم waxaa maanta sharaf weyn noo ah in halkan aan tababarka ugu xidhayno difcaddii saddexaad ama qeybtii saddexaad ee ciidanka booliiska dowlad goboleedka Jubbaland oo tababarka maanta loo soo xidhayo iyadoo aan u mahad celinayo guud ahaan intii ka qayb qaadatay tababaradan iyo dhisidda ciidanka booliska ee Jubbaland iyo ciidanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya booliskeeda ha ugu horeeyeen taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo maanta nagala soo qayb galay ahna taliyihii xilligii Jubbaland controlkeeda aan gacanta ku qabanay Kismaayo isagoo taliyaha ciidanka booliska ahaa nalana bilaabay dhisidda iyo abuuritaanka in la helo boolis tayeysan oo ay Jubbaland yeelato maantana mar labaad nasiib u yeeshay inuu yimaado wixii uu markii hore bilaabay oo maanta hawshiisu ay socoto ama ay gabagabo tahay aanan odhan karo Jubbalandna sharaf bay u tahay soo noqodkii uu kursiga ku soo noqday taliyaha booliska inay noqoto meeshii ugu horreysay isteedyada Soomaaliya ka soo baxo. waxaa kale ambaasadorka ururka midowga Afrika iyo hay-adihii wax ka qayb qaatay oo ugu horreysay dowladda UK hay-adda David shakhsiyaad aada uga shaqaynaya barnaamijkaas tababarayaashii guud ahaan AMISOM iyo doorkii ay ku lahayd AMISOM booliis tababarka iyo isku dubaridka iyo qaabka shaqay u socotay intaba waan uga mahad celinayaa waxqabadkooda iyo waxay qabteen ciidanka boolisku laa shaka maanta waxa ugu badan baahi u qabnaayo waa boolis waxaan aada ugu faraxsanahay dhalinyarada booliska hadda koorsada ka baxday horteeda ka muuqata gabdhiyo wiilasha leh inay dad yihiin wada da-yara inayna ahayn odayaal inayna wax naafiyi ku jirin in iyaga iyo dhakhaatiirtii soo baadhay iyo sida lagu soo xolayo aad baan ugu mahad celinaya boolisku waa qofka koowaad ee ku dhacaysa mas-uuliyadda shacabka maanta baahida aan booliska u qabno nabadiidka bannaan baa la ysku helhelaa laakiin cidda saxda ah ee maanta la rabo inay dadku dareemaan waxa ay leeyihiin ee goodirkan calaamadiisu goodirku waa saalim waa shay nabadgelyo weyn ma aha xawayaanka wax dhiba ma aha taliyayaasha booliska aan u malay inay taariikhda ka warrami doonaan goodirkan sababtay u qaateen waxaa weeyaan boolisku waa cunsurka ka soo dhexbaxa shacabka ee u adeega shacabka waxaad garanaysaan inta badan ciidanka milatarigii shacabka bannaanku ka jooga cadoway bannaanka isku helaan bannaanku ku dagaalamaan xataa inay shacabka is afgartaan way adag tahay kolalka qaarkood in loo kala turjumo iyo ina ka xanaaqi qaybta qoladaasn uma jeedo xumaan kale iyagiyo shacabku turjumaan bay u baahan yihiin waan garanayaa xilliyada qaarkood markay milatariga duur ka soo dhaadhacaan iyagiyo booliska islayn jiray maxay isku laynayaan qaabka shacabka loola dhaqmayo milatarigu aada uma yaqaan laakiin boolisku waa ciidanka keliya ee qofka shacabkii uu isu soo riixaya dhinaciisa had iyo jeer maxaa sababaya bulshadiibuu ka soo dhexbaxay iyagiibuu ka dhex shaqaynayaa cadow kale ma lehe tuugga iyo saqajaanka iyo cidda shabka shacabka dhibaysa iyo kuwa dhibaatada abuuruu ka shaqaynaya waxaan rajaynayaa ciidankan maanta difcadii saddexaad loo tababarayo halkan loogu xidhayo ma aha ciidan kismaayo joogaya obreshinka la qaado
markay ciidamada kale ee SNA-da ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Jubbaland ee daraawiishtii ay howlgallada bilaabaan cidda magaalooyinka la qabanayo maamulaysa waa gabdhaha iyo wiilasha saaka halkan horteeda taagan iyagaa boolis iyagaa shaqada laga rabaa iyagaa la rabaa inay dadka marka ugu horreeya meel kastoo la qabtoba isha naxariista le cidda ku fiirinaysa ee dadka soo dhaweynaysa waa booliska waxaa laydinka rabaa inaad noqotaan dad u naxa shacabkooda waan garanaynaa maanta culaysyada ugu badan ee booliska haysta waa kiis la yidhaha dhul oo dadka lagu ibtileeyey oo imtixaan uu ka jiro inaydaan qayb ka noqonin ifsaadka dhulka ee jira ee aada noqotaan dadka soo gaadhsiiya hay-adaha kale idinka sarreeya sharciga sida maxkamadaha oo kale iyo bal wax ka qabashadooda iyo ujaleecooda iyo dadku siday nabad ku kala heli lahaayeen inaad ka shaqaysaan boolisku waa kala dagaalamo maandooriyaha xashiishka iyo waxyaalaha mukhaadaraadka ah iyo waxa kale ee dhibka kontrabaanka ah waa qofka ugu dhow ee ogaan kara sababtoo ah isaga iyo bisaduba waxay la deris yihiin dadka macnihii dadka markaan ka sheego xaafadaha waxa ugu dhow bisadu waxaa la yidhaha xawayaanka waxay ugu dhowdahay guri kasta booliskuna shacabka ciidanka ugu dhoweeyo haddii military la yidhaha waa la yaqaana nabadsugo haddii la yidhaha marka hore argagax baa laga qaba asluub haddii la yidhaha xabsigay ku dhibeen laakiin boolisku waa cidda ugu horeysa ee qof waliba uu dareemayo ama uu qofkii wax soo gaadaan maanta bilays buu odhanaya military uma yeedhanayo nabadsugid uma yeedhanayo asluub uma yeedhanayo taas marka waxaa la rabaa inaad u muuqataan shayga dhabta ah ee dadku idinka rabaan iyo waxaa la idinka filayo intaaba inaad u noqotaan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad rabaa taliyaha ciidanka booliska inaan u sheego taliye ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo kuwa dowlad goboleedyadaba kulli mas-uuliyadda idinka idinka saaranta waxaa la idinka rabaa inaad dhistaan waa idinka waxaan had iyo jeer madaxda Soomaaliyeed ee federaalka ku xamanaa igu tir waxa la yidhaahdo war wax keena waxaana jire may annaga darano ciidankii aan xulaanay oo kuwani ma jarmal baa xagee ka yimaada waxaayo waxaasa ma soo dhaafaan xamar Janaal Saacid waxaan kaa codsanayaa rajaynayaa inaad wax badan dowlad goboleedyada guud ahaanba ay dareemi doonaan isbeddel aad ku samayso bal waxa idin soo gaadha ee Soomaalida ka dhaxeeya ee jamhuuriyadda federaalka magaceeda ku yimaada iyo dhismaha ciidamada booliskaaba inaad qeyble wax ka qaadato shay taariikh aad uga tagtaan maanta dhalinyarada aad arkayso duruufta ay ku nool yihiin waa midda ay ku nool yihiin ciidanka booliska federaalkeed gacanta ku haysaan waa la samayn doonaa isagoo federaalkii ah deegaanada la geyn doonaa qaabka shaqo markii loo kala qoro saasaa waxaan kaa codsanayaa taliyaha booliska ama gaadiid ha noqoto ama qalab ha noqoto katiinadaha ugu yar iyo qalabka inaad u raadisaan oo dhismaha ciidanka booliska aad ka qayb qaadataan haddii aad markii hore lahayd taladiisii in la sameeyo maanta waxaa lagaa rabaa dhammaystirkiisa iyo buuxintiisa ciidankan maanta tababar baa la siiyey tababar fiican bay soo bandhigeen laakiin waxay u baahan yihiin mid intan ka sii badan waayo waxay la dagaalamayaan mararka qaarkood wax dhib badan oo kale ayaa ku jira aada iyo aad baan idinku mahad celinayaa qoraxdoo kulul Soomaaliya ha guulaysato waxaan rajaynayaa ambasadoorka midowda Afrika iyo guud ahaan saraakiisha kale ee ka soo qayb gashay iyo xubnaha SNA oo iyaguna joogay kulligood iyagana waxaan leeyahay guul badan baan idin rajaynayaa waxaan rabaa inaan idiin sheego oo u mahad celiyo si gaara macallimiintii tababarayaasha ka ahaa dugsigan amisom booliis ahaa waxaan siin doonaa shahaado sharafyo waxaan u wakiilanayaa taliyaha booliska Janaal Saacid isaga insha Allah ku wareejin doona isaga iyo wixii kale loo xiray iyo wixii xiritaanka wakiil waxaa noqonaya taliyaha anigoo hawl kaloo degdeg u baxaya daraadeed aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa guul baan idin rajaynayaa waad mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi
diplom iyo shahaadadii uu ku dhamaystay tababarka oo hoosgeeda waxaan leeyahay saaxiibadiisa kale inay ku daydaan asaguna halkaa ka sii wada waa mahadsantahay xasan جالي عد يقول فردوسة محمد عبد بري فردوسة محمد بري ورسامة أحمد جيلي ورسامة أحمد جيلي ورسامة أحمد جيلي قول